فرنسا صدرت دمر لواد مسبح في سنة الله ما شاء الله ما شاء الله أديات بيونك سنتين ومدحوينها دبتا عدا ما تودن كان هينكرا حوية مركا هديمك مثلا ده وطني يوكله هدو يمكن حكم كقبته ده حوية ضد الصومالي وقلم مقدسو وقلبينهم aad baan ugu wantay isugu xidhay marka anigu kulliba mar kasta 100% ina bixaan gola haduuna bixi qabsan waayina anigu tan baan ka dhex bilaabanaa dagaalka tan gudadkeeda ayaan ka dhex bilaabanaa kowde huwantaan la dagaalamana waayo waa kuwii markii ciidanka Soomaaliland uu jabay ku ciidanka Soomaaliland markii uu jabay waa kuwii nagu diganay anaga qorligu dagaal baan naga socda maadaama qorligu dagaal naga socdo wax doorasho oo ka dhacaya qorlugud iyo wadaamo gooyo aagayga xaraam bi ka taa mar walba dagaal baan ku xignaa Musabbix Cabdi iyo qolada commissionka waxaan leenahay deegaanadayada ma keeni kartaan wax sanduuqa hadduu wadan soo baxo burcag insha Allah horta soo bixi maayo hadduu burcag ka soo baxo wallaahi billaahi tullah anigaygan ba ka bilaabay burcag 70 inanoo kale oo la yiraahdo Somaliland today oo cusub oo aan jabhadna ka tirsanayn meel kalena ka tirsanayn oo qoryahayaga SBna ka tirsanayn 70 inan oo Somaliland today la yiraahdo oo xaq jira ayaanuna oo ka soo horjeeda dadka maxay tahay huwanta waayo maxaan ku doortaa adan su'aal ku weydiin maxaan ku doortaa waayo waa kii nagu diganay waa kii ciidankayga markii la jabinay caay waa kii meel walba caayda la taagnaa marnaba cirra hadduu soo baxo dagaal baan ku xignaa انت لا عرها دغالميا والله انا قاعد دغالمنا بالله دغالمنا والله دغالمنا السلام عليكم ورحمه الله وبركاته ما سنت دوي ولا مغعا يدير باليرا يدير ولا waxaan ku soo dhawnay burlamiyo su'aashan ku weydiinay waxa koranaysa hadii Musabbix Cabdi mar laga soo laabto oo doorasho ku guuleysto maxaa Soomaaliland u filasaa dawala guul bamar laba fulay waa uu qalmay sugiyo ma waa maxleen iska daayay ilaa inta qiyaama laga dhacay haysan leena kursiga ana aba galbe kaarka cod bixintan halkan biyo la xisaaid ugu ridi sanadkan insha Allah dilan naftana waday yes waan taageeraad iyo aad wala ma waarans ma arag wala ninka bismillaahir rahmaan adowga xataa wala adowga wuxuu ku rajan waa inuu kursiga ka dago laakiin wala ka taay ku dhig halkaas aanu marayna yes waa wadana waa ku dhaw walaal magaca yisbaa soo dhaweynaya saashan ku weydiin waxa Faransa doorashada inuu soo foodle haduu Musabbix guuleysto saad aragtaa waa si wanaagsan waan filaynaa insha Allah inuu ku guuleysto tan iyo toddoba soo socotaba toddoba dambe soo socota inuu ku guuleysto jecelahay markasta Musa guuleysan insha Allah hadii uu soo laabto Musa deegaanada gacantiisa ka baxay ma soo celinaya inta maqaliga ka badan ba insha Allah uu soo celinaya ballanteenu waa Musa wandhowe waa magaca Cabdullaahi wala xuseen dhaweynaya burlamiyo saashan ku weydiinaya maanta waxa Faransa hadii doorashada madaxtooyada soo nagu soo foodle oo Musabbix Cabdi soo baxo maxaa Soomaaliland u filasaa Muusarto waa ninka dalka u taliya magaranaysa isagaana qabsanaya isagaana ugu celinayna sanad Xamed Xuseen walaal walaal dibada burlamiyo ku soo dhaweynaya rasuul baan ku weydiinaya Faransa hadii doorashada madaxtooyada nagu soo foodle oo Musabbix guuleysto saad aragtaa Soomaaliland maxaa u filasaa de guuliga gobonimo u filaya tooka inuu soo noqdo aadiya si weyn ma ugu faraxsana tooka Muuse haadiya 100% ma santa wandhowe walaal magaca Sidiq walaal burlamiyo ku soo dhaweynaya saashan ku weydiinaya Faransa hadii doorashada madaxtooyada nagu soo foodle Musabbix Cabdi guuleysto maxaa Soomaaliland u rajaynaysaa ama sidoo filasaa Soomaaliland waxaan u rajaynayaa guul dalkuna Muuse kama maarmo Muusena waa nin adag dalka nin jirecsan lama rabo nin adag uma la doonayaa dalka anagu nin seexanayo qaranka ka seexanaya ma dooranayno ninka adaga militariga aanu dooranayna ilaahay waxaanu ka rajaynaynaa toddoba kale oo karkarana si galo hadii Muuse guuleysto ma kulaatay inuu deegaanadii lama soo celinaa uu soo celin karaa uu soo celinaya duu guuleysto soo dhawla walaal magaca ani Cabduladiif walaal ku soo dhaweynaya su'aashan ku weydiin Faransa haduu Muuse mar labaad guuleysto saad aragtaa waa aragtideeda hadan qiyaaso aad iyo aad baan ugu soo dhaweyn bahalka dhakada muxsanade leena dabardeena dooni mayno inaanu soo dhaweyno agwaankii ugaas warfaa wuxuu yiri raga ugaas warfaa wuxuu yiri shabeelan gabraartiisa ogahay gacan togleen maayo ku jaxnin warani wata garbahayga ilbaa ku yaala goosanmaya
gacan togleen maayo wuxuu kala yiri magaranaysa agwaankaas garaadkayga meel aqbarkooda geeyay marka anagu ninka dooran mayno muuse bixinin adagu ma tan wada karaya weeleenaya denin Soomaaliya madaxayno gelinayo anagu wada anagu waxna ku darsanaa shaqo ku darsan mayno marka muuse aad iyo aad wadanaa leenahay mar kale aabana maamul maxamed Abdullaahi waa afayeenka badda Soomaaliyeed waxaa ku soo dhaweynaya su'aashan ku weydiin Faransa hadduu muuse mar labaad soo laabto oo doorashada soo guuleysto saad aragtaa waa soo dhaweynaa muuse cid aan taba ma naga hayna cid aan taba ma hayno marka waxaan leenahay muuse aabo soo noqo mar kale waan ugu celinaa yaa dad ma santa wandhow magaca maslaxa cali ku soo barnaamijyo su'aashan ku weydiin Faransa hadduu muuse bixi mar labaad soo laabto oo doorashada guuleysto saad aragtaa si wacan ma arkaano muuse bixi wadanka saas kala day wani wadanka u dhashay samada faamin in badan buu doo soo gaajado soo haraaday marka wadankiisii madaxweynaha waxba looran leena Afrikaadine yaa ku galgashay iska daayo haddii uu soo laabto nasiib soo celiyo maxaa Soomaaliya u filasaa maanugu hadduu muuse bixi soo laabto anigu ku faraxsanaa deegaanadii lama soo celinay insha Allah taala hadduu la hayraado deegaanada lumina wax dhinac Ilaahay ku maqan baa ee muuse bixi uma geysin samada faamin wax walba Ilaahay baa qorade laakiin waxaan leeyahay muuse bixi madaxweynaha afka laga daayay baan leeyahay madaxweynaha daayay waa muwaadin ugu soo gaajooday uu soo haraaday askari buu ahaa wad garanaysan sanad buu ka ahaa jabhad buu ahaa madaxweynaha afka daayay nimadeena reemka dhashay baan leeyahay ee wadanka garanaysan nabadii aan lagu shaqaayo galaasaday madaxweynaha afka daayay baan leeyahay madaxweynuhu soo dhaweeyay wadigaarka ay gobolada tugo laga soo dhaweynayeen dadkuna waxa garanaysan haddii aanad doonayn lama soo dhaweyn madaxweynaha samada fahmi waa madaxweynaha limaan leeyahay waxay koronayaan Hargeysa ka yimi goboladaas uu tagay ma Itoobiyan bayno yimi ma hayno yimina sanaawi mise Abiy Ahmed waa ma Soomaa madaxweynaha wadankiisii uu yimi ha ku raaxaystay iska daayo online samada ya aad ma santahay su'aashan ku weydiinayna Faransa hadduu muuse doorasho socdo mar labaad guuleysto saad aragtaa waa aad iyo aad baan ku faraxsanahay wadanku in adag u baahan yahay muuse bixi meeluna Soomaaliland tagi ma jirto ciidan meeladka SSB qorlugud uu tagay marka waa nin wadanka wuxuu qabanaya wixii ka xunade hadduu soo baxo maxay sameynayaan ciidamada madaniga aad buu taageeray SSB way hadduu muuse guuleysto maxaad u filaysaa Soomaaliland ama deegaanada lama soo celinaya waa haddii Ilaahay ku soo saaro guuleysanaya bes ay muuqatee marka hore ma cadimka isaga macdaynaya laakiin haddii uu ku soo baxo waxyaabo badan buu qabanaya waxyaabo badan ayuu qaban ciidan wadamadii deegaanada gacanta ka baxay kuwa ka badan uu soo celinaya si uu ku saaliyo soo dhaw aad rasuul wandhow magaca maxamed Abdullaahi maxamed waan soo dhaweynaya su'aashan ku weydiinayna Faransa hadduu muuse doorasho soo socdo guuleysto saad aragtaa muuse uu guuleysanaya dhammaan dadku dhimino way codeynayaan gobolada bari iyo gobolada kalaba way codeynayaan waana libaax uu guuleysanaya isagana taageersanay haddii uu guuleysto muuse nasiibka mar labaad soo celiyo ma kooxda deegaanadii gacanteena ka baxay inuu soo celinayo inta sanadooda la dhigaya ka maqaya ay naga gacanteena ka maqay waana diyaar doorashadu ridaya uu soo celinaya muuse aanu taageersanna Ahmed baa la dhahaa magaca Ahmed oo ku soo dhaweynaya su'aashan ku weydiinayna Faransa hadduu muuse mar labaad guuleysto waa dalaa wadan ku leeyahay hadduu soo baxo waa okay wana Soomaaliland waxa kala yaala waa madaxweynaha wadanka Soomaaliland waa ku kalsoonahay marka hadduu soo baxo hadduu soo baxo waan ku kalsoonahay tawahaye soo dhaw magaca Safiya iyo ku soo dhaweynaya ku soo barnaamijyo su'aashan ku weydiinayna Faransa haddii doorashada madaxtooyada uu soo foodlo muuse bixi cabdi soo baxo Soomaaliland maxaad u filaysaa ma rajaynaysaa nimcaan u rajaynaya barwaaqo tawahaye marka horta ay muuse mar labaad soo laabto dalkii naga go'ay iyo deegaanadii lumay iyo ragii maqnaan soo celinay tawahaye